السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا جالك مالمها waxaan idiin soo gudbinaynaa laba qiso oo aad u xiiso badan. Qisada koowaad ayaa waxay ku saabsan tahay samafalka waalidka qiimaha uu leeyahay iyo qofka mar waliba waalidkiis u noqdo baari waxa uu ka dhaxlayo. Ogow samafalku waa camal aad u wanaagsan. Allahna subxaanahu wa tacaala uu jecel yahay ruuxa sameeyana oo mar waliba ka abaalmarinayo. Haddii aad aragto waalidkaaga iyo ubadkaaga oo ku wada dhacay dhibaato isla markaana aad haysato hal khiyaar yaad badbaadin lahayd. Waa su'aal run ahaantii jawaabteedu aad u adag tahay. bal ila daawada qisadan ka hadlaysa samafalka. Haweeney ayaa waxay guri ku wada noolaayeen ayada caruurteeda iyo hooyadeed. Habeenada kamid ah ayaa si lama filaan waxa gurigooda ka kacay dab. Gabadhani waxay haysatay 3 caruur ah. Ayada iyo mid yar oo dhabta ku haysato ayaa is ag jiifay. Laba gabdhood oo isku xigana waxay jiifeen sariir ka soo horjeeda. Waxa dhinaca kale ka jiifay hooyadeed. Xilli saq dhaxa ah ayaa waxa soo toostay hooyadii. Markaasi waxay maqashay qaylo. waa ay soo kacday. waxay aragtay dab gurigii oo dhan wada qabsaday. dabkan ayaa wuxuu ka soo bilowday qaybta ugu hooseysa guriga. gurigan ayaa wuxuu ahaa dhowr dabaq. waxaa hoos joogay nimanka dabdamiska oo markaa dadka badbaadinayay isla markaana isku dayay inay dabka damiyaan. dabkii waa uu sii batay wuxuuna soo gaaray dabaqii kore ee guriga. waxaa lagu wargeliyay reerkii inay qaybta suduuxa ay koraan si halkaa looga badbaadiyo. gabadhii waa ay soo toostay waxayna isla markiiba kicisay labadii gabdhood waxayna ku amartay inay guriga suduuxiisa koraan. labadii gabdhood waa ay koreen. waxaa isku soo haray gabadhii iyo cunugii yaraa oo dhabta ku haysatay iyo hooyadeed. dabkii ayaa soo batay wuxuuna ku soo dhawaaday qaybta ay markaa ku sugnaayeen. gabadhii waxay fiirisay cunugeeda misana oyin ayuu halkaa la fadhiyaa. mana awoodo inuu dabka ka cararo naftiisana uu badbaadiyo. waxay haddana fiirisay hooyadeed waaba ka daran tahayba oo waa qof da ah oo aan dhaqaaqi karin. gabadhii waxay garan weyday labadan qofkii ay qaadi lahayd. tani waa hooyo oo 9 bilood caloosha ku soo siday nolosha ay maanta haysatana soo gaarsiisay mana garanayso si ay uga tagto. dhanka kale kani waa cunugeeda oo hilibkeeda ka mid ah. waxay dareemi xanuun oo nafteeda ma siinayso inay cunugeeda dabkan uga cararto. haddii uu mowqifkaano kale ku qabsado maxaad samayn lahayd? waa arrin xanuun badan. balse gabadhan waa ay fikirtay waxayna iska ilowday cunugeedii. waxayna isla markiiba soo qaaday hooyadeed waxayna ka soo tagtay wiilkeedii oo oynaya. waxay nafteeda ku tiri waxaa laga yaabaa inaad hooyada badbaadiso kadibna aad wiilkaaga u soo noqoto isaga oo weli nool. sidaa ayay hooyada ku soo qaaday. balse markii ay hooyadeed soo qaaday oo ay dhex sii socoto ayaa dabkii wuxuu wada qabsaday gurigii oo dhan uuna wada gubtay gurigii. gabadhii aad ayay u murugootay waxayna bilowday ooyin. waxayna kortay qaybtii kore ayada oo hooyadeed xambaarsan. markii ay dhigtay ayay ooyin la fadhiisatay. gabdhaheedii iyo hooyadeedna waxay bilaabeen inay ayagana ooynayaan. waxayna garan waayeen waxay sameeyaan. gabadhii waxay oynaysay muddo dheer ilaa laga damiyay dabkii. dadkii waxay bilaabeen inay farxayaan balse gabadhani ma aysan iloobin wiilkeedii yaraa oo dabka ku basbeelay. habeenkii oo dhan ayay iska oynaysay. markii uu waaga baryay ayaa qolada damdamiska waxay sheegeen inuu wiilkeedii nool yahay. hooyadii waa ay soo carartay ayadoo aanan garanaynin xaaladda ay ku sugan tahay. waxay aragtay wiilkeedii oo caafimaad qabo. farxad ayay la dhiban gaartay. xabadka ayay saartay ayada oo ilinta ka da'ayso. markaasay waxay tiri allow adiga ayaa mahad iskale oo ii soo celiyay cunugeyga oo caafimaad qaba. dadkii meesha joogay ayaa waxay gabadhii ku yiraahdeen tani waa samafalkii aad u samaysay hooyada. waa samafalkii abaalmarkiisa. waa kaas samafalka abaalmarkiisa. allah subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay isaga oo na amraya inaan waalidka u samafalno. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما
واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الله سبحانه وتعالى وحو آياتها نغو أمريا إنان والدكين أسما فلنو markii ay gaboobaana aan ka ilaalino wax waliba oo ka abuuri kara karaahi ama nacayb xitaa inaan ku dhihin uf haddii naloo diiday inaan xitaa ku dhahno uf maxaad u malaynaysaa waxyaabaa ka sii sareeyo waa ka sii daran yihiin. qisadani halkaa ayay ku eg tahay, balse qisadan waxaan ka qaadanaynaa faa'iidada ay leedahay inaad u samafasho waalidka. maxaa yeelay samafalka waalidka waxaad ku helaysaa inuu alla subxaana wa tacaala ka raali noqdo. bal qisada labaad ila daawada, ayaduna waa mid cajiib ah, hase ahaatee tii hore waa ay ka duwan tahay. qisadan waxay ku saabsan tahay waxaa laga dhaxlayo waalidka oo lagu caasiyo. qisadan ayaa waxay dhex martay aabbo waayeel ah iyo wiilkiisa. aabbahani wuxuu dhalay gabdho iyo wiilal. wuxuu wakhtigiisii ku soo dhammaystay korinta carruurtiisa. carruurtii waa ay weynaadeen, mid walibana wuxuu yeeshay reer. waxaa isku soo haray hooyadii iyo aabbihii. muddo kadib hooyadii waa ay dhimatay, waxaa soo haray aabbihii oo keliya oo waayeel ah. kadib wuxuu ku fikiray inuu wiilashiisa mid ka mida la noolaado maadaama uu meeshii ku cidlooday. wuxuu isiri bal wiilashada midka ugu weyn gurigiisa ku noolow. wuu u tegay wuxuuna ku yidhi waxaan rabaa inaan kula noolaado. wiilkii aabbihii waa uu soo dhoweeyey, balse ma uusan noqon nin sabra islamarkaana ka fikira sidii lagu soo kariyey oo lagu soo sabray. aabbihii maalmo kadib wuxuu bilaabay maadaama uu gurigii wiilkiisa ku nool yahay inuu dhex wareegayo qolka iyo jikada, meel walibana uu gelayo. wuxuuna bilaabay inuu ku leeyahay wiilkiisa iyo xaaskii uu qabay, maxay tahay raashinkan aad sidaan ugu dheelaysaan? maxay tahay alaabtan sidaa meesha u taallo? markii uu aabbihii hadalka badiyey ayaa gabadhii waxay ku tiri saaxiibkeed, aabbaha sidan kulama noolaan karno ee waxaad dejisaa qolka hoose ee waardiyaha ku nool yahay, waardiyahana meel kale u raadi. wiilkii wuxuu diyaariyey qolkii waardiyaha, waardiyihiina wuxuu dejiyey meel kale. kadib wuxuu u yimid aabbihii wuxuuna ku yidhi, aabbow waxaan rabaa inaan ku dejiyo qol aad u qabow badan oo ku yaalo hoos. qolkaas ayaa ku wanaagsan, mana lahan wax buuq ah ama dhibaato ah. aabbihii wuxuu fahmay wiilkiisa qorshaha uu wato. ma uusan la hadlin, balse warkiisa ayuu yeelay, wuxuuna degay qolkii. wiilkii maalmihii ugu horreysay ayuu aabbihii sii marayey, balse maalmihii dambe wuxuu bilaabay inuu soo garab marayo qolkiisana iska soo gelayo. gabadhii waxay bilowday inay raashin odayga meesha u geynayso, waxayna mar weliba raashinka ugu shubi jirtay weel caag ah si uusan odayga weelkan u jebin, weelasheedana uusan u qasaarinin. qolkiisii wuxuu noqday mid aad u ur badan oo aan nadaafad lahayn. aabbihii sida ayuu isaga noolaa. maalinkii dambe wuu jiraday, isaga oo sariirtii saaran ayuu geeriyooday. wiilkii aabbihii ayuu soo aasay. markii uu soo aasay maalmo kadib, markii laga joogo dhimashadiisa, ayaa wiilkii iyo xaaskiisa waxay tageen qolkii uu aabbihii ku noolaa. waxayna isku dayay inay soo hagaajiyaan, waardiyihiina ay soo dejiyaan. ayaga oo qolkii hagaajinayo ayaa waxa u yimid wiil yar ee dhaleen. markaasuu wuxuu soo qaatay wiilkii caagga ahaa oo awowihii wax ku cuni jiray. markaasaa aabbihiis wuxuu ku yidhi, aabe wiilkan iska tuur, looma baahna, hadda waan nacnay, ee bannaanka isaga saar. wiilkii ayaa aabbihii ku yidhi, maya aabbo, aniga ayaa haysana wiilkan. markaasuu wuxuu ku yidhi, maxaad ku samaynaysaa? wuxuu ku yidhi, weel ayaan dhiganayaa, markii aad gabowdo ayaan raashin kugu siinayaa. aabbihii aad ayuu u ooyey. markaasuu wuxuu xasuustay wuxuu aabbihiis kula dhaqmi jiray, balse ooyintani ma ahan mid wax u tarisa, maxaa yeelay talo gacantiisa waa ay ka baxday. kani waa abaalmarka caasi waalideennimada. waxaa laga yaabaa in badan oo maanta dunida joogto inay cibaado iyo la imaanaya waxyaabo badan oo ilaahay amray, balse laga yaabay inay yihiin dad ku caasiya waalidkood. cibaadadani ay la imaanayaan waxay noqon doontaa mid ay ku khasaaraan, maxaa yeelay waalidka oo lagu caasiyaa waxay ka dhigan tahay adigoo alla subxaana wa tacaala ku caasiyey. alla subxaana wa tacaala meelo badan oo ka mid a qur-aankiisa wuxuu nagu amray inaan isaga caabudno, axad kalena aan u shariig yeelin. sidoo kale wuxuu ku xijiyey inaan waalidkan u samafalno, maxaa yeele waalidku waa midka sabab u ah inayn duniyadan ku noolaano maanta. maxaa yeele waalidka la-aantiisa inagoo ma jireen. sidaa darteed alla subxaana wa tacaala wuxuu noogu digayaa meelo badan inaan iska ilaalino inaan waalidka ku caasino, isla markaana aan ku dadaalno sidii aan uga shaqayn lahayn samafalkooda iyo wanaagooda. ruux weliba wuxuu la yimaado abaalmarkiisa uu helayaa, mana ahna adduunyada keliya ee balse waxaa dhiman in maalinta qiyaamaha la kulmi doono ciqaab iyo cadaab daran. rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi, ruuxa caasi waalidiinka ah janno ma geli doono. waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan.
haddii aad ka cusub tahay janalka maalmaha fadlan sabskraib dheh gameelkan reex si ay kuu soo garaan waxyaaba cusub aan soo dhigi doono. mahadsanid. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا.